بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalayaal daawadayaal mar kale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeena iyo cuntada iyo caafimaadka barnaamijka cuntada iyo caafimaadka mar walba waxaan uga hadalnaa sida cuntada iyo caafimaadka iskugu xiran yihiin sida cuntada iyo caafimaadka iyo nafaqada iyo nolosha iskugu xiran yihiin ayaan uga hadalnaa maanta waxaan jeclahay fikrad ku saabsan cuntada iyo caafimaadka ee aan ka akhriyay buugaagta aan daraaseeyo ee aan akhriyo ee ku saabsan cuntada nafaqada iyo caafimaadka sida iskugu xiran yihiin aan ka akhriyay oo aan ka daraaseeyay ayaan jeclahay in aan inila wadaago fikradaas xaqiiqdii fikrado badan ayuu buugga ka koobnaa laakiin fikradan sababta u doortay waxa weeye fikrada dadkeenu way u baahan yihiin bulshadeena u baahan yihiin in waxa waaye ay ogaadaan waxana ayna ku dhaqmaan cilmi ahaanna ay u bartaan fikrad maaha laakiin si scientifically ah si cilmi baaris ah ayuu dhakhtarkii qoray buuggan ayuu u daraaseeyey ayuuna usoo bandhigayaa buuggan waxaa la yidhahdaa magaciisa one spirit medicine waxaa la yidhahdaa magaciisa one spirit medicine waxaa qoray qoraa la yidhaahdo waa nin dhakhtar ah Alberto Villoldo ayaa la yidhaahdaa ninkan magaciisa la yidhahdo Alberto waa dhakhtar ka mid dhaqaatiirta ku nool waddanka Mareykanka dhakhtar kaliya ma ahan waxa uu sidoo kale daraaseeyaa bulsha weynta caalamka sida ay u nool yihiin xagga cuntada iyo caafimaadka sida ay cuntada ay marna iskugu daaweeyaan marna ay xanuun uga helaan ayuu muddadii 20 sano soo dhaafay ku dhex jiray wadamo badan ayuu safray wuxuu ogaaday marka dhibaatooyinka cuntada ay keenaan iyo sida loogu hortagi karo ayuu marka sheegayaa marka laba shay oo dadkeenu aad iyo aad ugu badan yihiin ayuu ka hadlayaa bulshooyinka kalena ay aad u saameeyeen dadkeenu laakiin xaqiiqdii marka aad fiirisid waa sheegi doonaa aad ay ugu badan yihiin waxa la yiraahdaa kan koowaad waa sugar sonkorta iyo flourka ama mataqaana burka cad iyo sonkorta sida aan u cunno kulay qof walbo oo barnaamijkan dhageysanayo uu ogsoon yahay aad iyo aad ayaan u cunnaa cunto walbo aan karsanayno waa ku darsanaa waxa waaye xalwad haddii aad sheegtid bur iyo waxaa laga sameeyaa iyo macaan iyo sonkor iyo saliid waxa waaye canjeelada waa aragtay malawaxa waa aragtay sambuuska iyo burka iyo waa aragtay burka caadiga ah waa aragtay waxa weeye waxyaalaha kan mandaasiga waa aragtay macmacaanka oo dhan waa laga sameeyaa baastada waad aragtay wax walba aan cunno bur iyo baasto way ku jiraan marka wuxuu ku leeyahay qofka Mareykanka ku nool qofka caadiga cadaanka ah sanadkii waxa uu cunaa 150 pound oo sonkor ah ayuu cunaa marka waa qiyaasi kartaan inuu maleeyaa dadka Soomaalida inta pound ay cunaan sanadkii waxa waaye waa fahmi kartaan qiyaas ahaan baa numberka in ku keenay inaan ka qiyaas qaadano dadkeena u baahan inay ogaadaan sonkorta ay cunaan burkan wuxuu ku leeyahay qof walba oo Mareykan ah sanadkii waxa uu cunaa 133 pound oo burka cad ah ayuu cunaa marka anaga maxaad u maleysaa oo subax iyo quraac iyo qado iyo casho aan cuneyno sonkor iyo saliid iyo bur aan cuneyno maxaad u maleysaa numberkeena intee ayuu noqon karaa intan uu ka badanayaa dabcan marka wuxuu ku leeyahay sonkorta iyo burka waxa uu ku leeyahay waa xanuunada adduunka oo dhan labada keeno waa labadaas haddii uu qofku iska ilaalin karo inuu joojiyo ayaa loo baahan yahay qofka laakiin haddii uu iska ilaalin karo wax badan oo xagga caafimaadkiisa ah ayuu arkayaa aniga xaqiiqdii muddo badan ayaa iigu dambeysay sonkor iyo saliid inaan cuno sonkor iyo bur inaan cuno wax badan ayaan iska dareemay markaan iska dhaafay oo xagga caafimaadkayga ah way badan ayaa loo isgareeyay waxa waaye culeyska iga saarnaa caloosha iyo kaliya ayaa loo isgareeyay wax badan hurdadeedu way fiicnaatay inflammation badan oo jirkeyga ka bixi jiray ama ka dhici jiray oo iga tagay madax xanuun fara badan oo iga tagay waxyaalahan oo dhan marka wuxuu ku leeyahay waxaad ku bedelanaysaa labadan markaan dhaaftaan labadan kale in lagu bedesho waxa waaye vegetables-ka iyo greenska waxyaalaha cagaaran iyo qudaarta in lagu bedesho ayuu leeyahay sababtoo ah qudaarta ama waxyaalaha cagaaran wax walba uu qofku u baahnaa ayaa laga helayaa waxa laga helayaa vitamiinkii waxa laga helayaa macdantii waxa laga helayaa proteinkii waxa laga helayaa waxa waaye faatkii fiicnaa ayaa laga helayaa waxa laga helayaa biyihii ayaa laga helayaa marka laakiin kuwan wax laga helo xaqiiqdii aan xanuun iyo cudur aan ahayn ma jiro
marka sonkorta iyo saliidda wax badan hore uga hadalnay kan waxaan rabaa cilmi ahaan iyo aqoon ahaan inaan saa daraadeed waxaa loo baahan yahay in aan ku bedelano sonkorta iyo burka qudaarta iyo waxyaalaha cagaaran sababtoo ah qudaarta iyo waxyaalaha cagaaran jirkaagana way u fiican yihiin sida aan soo sheegnay maskaxdaadana way u fiican yihiin marka waxaa kale uu ku darayaa Dr. Alberto waxaa kale uu ku darayaa wuxuu leeyahay waxa meesha yani waxa waaye jirkaaga laba meel ayaa ugu qiimo badan xagga caafimaadka laba meel baa la rabaa xoog inaad saartid kow waa maskaxdaada waxa ku jira iyo sidii ay yani maskax fiican u lahaan lahayd iyo sida u quudin lahayd maskaxda inaad xoog saartid talabaad waxa ku leeyahay calooshaada yurugaat calooshaadana waa inaad xoog saartid sababtoo ah labadaas haddii aad ka xanuunsan tahay qof caafimaad qaba ma noqonaysa labadaasna way isku xiran yihiin mar walba marka waxaad calooshaada gelinaysid waa wax maskaxdaada yani u gudbaaya saas ayaana loo baahan yahay marka wuxuu ku leeyahay your gut is your second brain calooshaada waa maskaxda labaad sababtoo ah waxa ku jira calooshaada yani inta neuronska ku jira maskaxdaada ayaa calooshana ku jira sida dhaqaatiirka hadda ay ogaadeen marka maskaxda waxay ku shaqeyso sidoo kale calooshana ay ku shaqeysaa marka buuggan qofka u baahan inuu sii daraaseeyo buug si scientifically loo qoray waaye one spirit medicine ayaa la yiraahdaa yani wuxuu ka sheekeynaa dhibaatooyinka maanta bulshada caalamka haysta xagga cuntada iyo caafimaadka waana labadan waa sonkorta iyo saliidda waa labada aadka ugu badannahay inaan cunno marka walaalayaal insha allahu tacaala casharkeena maanta intaas ku joojinaynaa waxaan jeclaa inaad la wadaagtaan casharkan dadka kale ee saaxiibada tihiin xagga social mediaha intaan casharkiisa iskaga arkeen waxaan idinka tegaa sidaas islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu